nin taliye ah iyo askartiisa ayaa lagu laayay qarax miino oo ka dhacay Shabeellaha Hoose. Faahfaahinno kala duwan ayaan idinkaga haynaa halka sida gaarka uu qarax uga dhacay. Askari ayaa la tilmaamay inuu isu toogtay duleedka deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ugu dambeeyay halkan idinkuga haynaa Al-Shabaabna waxaa la soo wariyay inay la wareegeen dhowr tuulo oo hoos tagta gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Cadalle. maxaa ka jira in ciidanka dawladdu ay xilligan wadaan sidii deegaanadaas ay gacanta ugala wareegi lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wararkaasi iyo kuwa kale ayaan halkan idinkugu soo koobi doonaa saaxiibayaal. Haddii ay tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto sidoo kalena saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faalana aragtida nagula wadaagtaan. Mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. Aynu ku bilowno dhinaca deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iyo qarax miino oo aad u xoogana oo ka dhacay meel lagu magacaabo Fadacarooti oo hoos tagta lambar 50 ama lambar 60. wararka aan halkaas ka helayno ayaa sheegaya in subaxnimadii hore ee saaka la tilmaamay in askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu isu toogtay halka lagu magacaabo Hubgub oo kamid ah kuwa hoos taga lambar 60. duleedka deegaankaas ayuuna ku yaalaa tuuladan. waxaa la tilmaamay arintaas markii ay dhacday kadib ciidankii ku sugnaa deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose in dhacdadaas ay ka war heleen. nin magaciisu dadka deegaanka ay ku sheegeen taliye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Sandhiiqo ayaa la tilmaamay in dhacdadaas uu ku baxay oo uu qaatay gaari cabdibila ah iyo ciidankiisa. mootooyin ayaa sidoo kale la tilmaamay inay raaceen sidoo kalena aadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Fadacarooti oo kamid ah deegaanada hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kalena u dhaxeeya Marka iyo Afgooye. inta ay wadada ku sii jireen taliyuhu waxaa la tilmaamay inuu saarnaa mid kamid ah mootooyinka laakiin markii loo dhawaaday halka askariga uu isu toogtay la tilmaamay inuu dalbaday in la istaajiyo guud ahaanba gaadiidka safarka kula jiray oo uu gaariga cabdibilaha ku jiray iyo mootooyinka sidoo kalena ka codsaday ciidanku iyo guud ahaanba ilaaladiisa in uu raaco cabdibilaha. waxaa ugu dambeyn la tilmaamay in loo ogolaaday inuu gaariga raaco markii ay socdeen wax ka yar 1 kiiloomitirna la tilmaamay in qaraxaasi miino ee aadka u xoogana uu qabsaday gaariga cabdibilaha ahaa. Allah u naxariisto halkaas ayuu ku geeriyooday taliye Sandhiiqo. waxa sidoo kale wararka aan helino iyo dadka deegaanka oo ay xiriiro kala duwan la sameeyeen noo xaqiijiyeen inay jiraan askar kale oo isagu la dhimatay ama la geeriyootay. waxaana la sheegay in dhaawacyo kale ay jiraan kuwa oo loo soo qaaday xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. halka wararka qaarna ay sheegayaan in dhinaca degmada Afgooye loo soo celiyay sidoo kalena ay doonayeen inay qayb ka noqdaan safarkan taliyuhu uu ku doonayay inuu ku soo badbaadiyo ama xitaa uu ku soo wado ninkaasi la sheegay inuu isu toogtay ilaa iyo haddana lama oga sababta rasmiga ah. gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socday howlgallo isdaba joog ah. arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ay dagaaladu socdeen sidoo kalena la sheegayo in tuulooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan isla gobolku ay gacan ku intooda la wareegeen ciidanka militariga Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo kuwa deegaanka ah gaar ahaan kuwa tuulooyinka ku hareeraysan lambar 50. waxaa la warinayaa in ilaa iyo hadda aanan la ogeyn cidda sida rasmiga uga dambeysay qaraxaas laakiin inta badan deegaanada gobolka waxaa qaraxyada noocani oo kale ah iyo dagaallo gaadmo ah ku qaada dagaalamayaasha Al-Shabaab oo wali ku xoogan isla qayb kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose. taliye Sandhiiqo waxa ay dadku deegaanka sheegeen meedkiisa laga soo qaaday halkaas lana geeyay gudaha deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose isaga iyo askartii la geeriyootay halka kuwa dhaawac ahaana loo soo gudbiyay magaalada Afgooye ee isla gobolka Shabeellaha Hoose. askariga istoogtay ilaa iyo hadda lama oga inay xabadu ka fakatay in si kasa uu isagu isu toogtay laakiin ilaa iyo hadda faahfaahinno ayaa la sugayaa oo ciidanka gaar ahaan kuwa saraakiisha ah la doonayo inay ka warbixiyaan. intaas aan kaga talaabno gobolka Shabeellaha Hoose dhinaca iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe deegaano dhowr ah oo gobolkaas ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la wareegay sida aynu xoguhu ku helino. dagaal subaxnimadii hore ee saaka muddo 3 mar iyo wax ka badan la isugu soo noqnoqday ayaa ka dhacay 3 tuulo oo lagu kala magacaabo Maxaa Saciid, Xasan Geelle iyo sidoo kale Qaahira oo u dhaxeeya halka lagu magacaabo Nuur Dugle iyo sidoo kale degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka ayaana sheegaya in dagaaladii dhacay oo markii koowaadba dagaalkii dhacay la isku adeegsaday huble noocyo kala duwan oo dagaalamayaasha shabaabku ah isku dayeen inay guud ahaanba la wareegaan gacan ku haynta tuulooyinkan aan hadda soo xusnay. ciidamadii ku sugnaa ee kuwa deegaanka ayaana jilbaha u aastay waxaana la warinayaa in halkaas dagaal qaraar oo ka dhacay uu sababay khasare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. isla sidaas oo kale dagaal labaad ama mar labaad ayay kooxdu soo rogaal celisay mar kale haddana dagaal ayaa la isqabsaday oo halkaas la isugu riiqmay. khasare kala duwan ayaa isagana ka dhashay markii saddexaad Al-Shabaab
oo dareensan in laga awood batay dagaalkaasna uu ahaa mid aad u xoogan sidoo kalena tuulooyinkan aysan si sahlan u geli karin ayaa garowsaday in maleeshiyaadkoodii ugu badnaa oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegaya inay ku ururinayeen qaybo ka mid ah isla gobolka shabeellaha dhexe ay u soo direen tuulooyinkan xasan geelle maxaa siciid iyo qaahire ayaana la tilmaamay weerar safmar ah in kooxdu ay ku qaaday taas oo keentay in ciidamadii deegaanka oo aanan wax gurmad ah helin ay ugu dambeyn xeelad dagaal oo dib u soo gurasho ah ay sameeyaan kana soo baxaan tuulooyinkan aan hadda soo sheegnay waxaana la tilmaamay in duleedka degmada Cadalle inay ku sugan yihiin ciidamadan deegaanka sidoo kale wadada dheer ee isku xirta Nuurdugle iyo Cadalle ayaana la tilmaamay in 3 tuulo oo ku taala ay si rasmi ah ula wareegeen kooxda al-shabaab oo maalmihii la soo dhaafay iyagana waday hub urursi iyo sidoo kale in maleeshiyaadkooda ay ku soo daabuleen meelo badan oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga cidda markaasi gacan ku haynta tuulooyinkan maamuleysay sida horeba aan idinku soo sheegay marka laga reebo in ciidamo kuwa deegaanka ah ay dalbanayaan in si degdeg ah loo garabsiiyo si tuulooyinkaas ay ugu laabtaan iyo al-shabaab oo isku dayaya inay difaacdaan tuulooyinkaas kaliya ma ahan tuulooyinkan kuwii ugu dambeeyay ee lala wareegay waxa horay u jiray dhowr tuulo oo ay la wareegeen ciidamada kuwa deegaanka ah oo garab ka helaya kuwa militariga ah ee Soomaaliya laakiin markii dambe waxa la tilmaamay in shabaabku ay soo xoogeysteen dagaal xoogan oo halkaas ka qarxay taasi oo keentay in qasaraha dagaalkii ka dhacay halkaas si rasmi ah ay markaasi ciidamada deegaanka oo ay saraakiisha ugu horeeyaan ay u shaaciyaan in isku dayeen shabaabku inay halkaasi weerar xoogan ku galaan laakiin aan si sahlan aysan u gelin ugu dambeynna laga difaacay sidoo kale saaxiibayaal xaaladda ayaa hadda ah mid aad u kacsan ciidamada deegaanka waxa ay dalbadeen saraakiil ciidan oo waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan kuwaas oo garab ka siiya howlgalka la doonayo in lagu la wareego tuulooyinkan saddexda ah ee aan soo xusnay ee Xasan Geelle maxaa Saciid iyo Qaahira oo iyadana u dhaxeeya Nuurdugle iyo sidoo kale halka lagu magacaabo raagaceelle oo isla Shabeellaha Dhexe ka tirsan marka laga reebo tuulooyinkan dhinaca kale warshax duleedkeeda waxa la sheegay in lagu arkay dagaalamayaal kooxda ka tirsan oo ujeedkoodu ahaa sida la xaqiijinayo inay la wareegaan guud ahaanba isla markaana xiraan isu socodka dadka iyo gaadiidka ee Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir laakiin ugu dambeyn ma aysan suuro gelin ciidan ka tirsan kuwa xoog dalka Soomaaliyeed ayaa la tilmaamay inay ku baxeen sidoo kalena laga saaray tuulooyinkii lagu arkay kooxdu oo ay dib u soo gurasho sameeyeen dhinaca kale isla abaabul aad u xoogan ayaa socda oo la doonayo in shabaabka looga saaro tuulooyinka hadda aan soo xusnay ee maanta ay la wareegeen subaxnimadii hore ee Saaka dagaal aad u qaraar oo dhacayna waxa la tilmaamay in qasaarihiisa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo shaacin laakiin shabaabkii halkaas soo weeraray qasaare xoogan lagu gaarsiiyay dagaalka ma jirto faahfaahin kale oo intaasi laga helayo oo xaqiijin kara qasaraha rasmiga ah warar kale oo iyagana soo baxay ayaa tilmaamaya in dagaal xoogan uu ka socdo dhinaca deegaanka Soomaalida gaar ahaan halka lagu magacaabo Dhungu oo hoos tagta gobolka Liibaan sidoo kalena ka tirsan degmada Dhekasuufta oo ka tirsan isla deegaanka Soomaalida waxa halkaas la tilmaamay in lagu kala booday fadhiyo kala duwan oo ay lahaayeen saraakiisha ugu sarreeyay ee deegaanka Oromada iyo kuwa deegaanka Soomaalida laakiin waxa heshiiskii dawladda federaalka ay qayb ka ahayd ee wadayba Itoobiya ugu dambeyn uusan wax miro dhala ka soo bixin taasi oo keentay in dhinacyadu ay kala boodaan sidoo kalena ciidamadii ugu xooganaa ee halkaas ay geysteen iyo hubkii saacadii la soo dhaafay laga kala daabulayay deegaanka Oromada iyo kuwa Soomaalidaba halkaas la isugu geeyay hub culusna la maqlayo dagaal aad u qaraarna uu ka socdo sidoo kalena waxa la warinayaa inay socoto abaabul lagu doonayo in lagu joojiyo in mar kale qasaare xoogan uu ka dhasho maadaama horay dagaallo u dhacay ay ka dhasheen qasaare culus oo dhinacyadan soo kala gaaray ilaa iyo haddana lama oga sababta rasmiga ee dagaalkan mar kale uu dib uga qarxay iyadoo dhul ay isku haystaan wadahadaladii socdayna ay fashilmeen ugu dambeyn la sheegayo inay gacmaha iskula tageen dhinacyadan wixii ku soo korra saaxiibayaal guud ahaan gaar ahaan dagaalkan ka socda dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Liibaan oo Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeya iyo Oromada oo waliba xubnihii ugu badnaa looga dilay dagaaladii hore oo iyagana cabasho ah ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saacadaha soo aadan sidoo kale dhinaca la markonton qarxi ka dhacay ay ku laadeen taliyihii taliye Sandheeqo iyo sidoo kale ciidankiisana barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa faahfaahin hor leh oo iyagana laga helayo sidoo kale waxaan idin soo baahin doonaa dhinaca deegaanada al-shabaab ay la wareegeen ee gobolka Shabeellaha Dhexe wixii faahfaahin ka soo kordha abaabul ciidan iyo howlgallo lagu doonayo mar kale in dib lagu wareego deegaanadaasna saaxiibayaal barnaamijyadan wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markay kugu horeysay ee aad soo booqato ilaa dhamaadkan aad la soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto sidoo kalena saaxiibada la sii wadaagto qaybta hoose ee faladan aragtida nagu wadaagtaan si aad halkan uga heshaan wararka degdega ah iyo sidoo kale falanqeynada ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo xaaladda guud ee dalka